waxaa maanta si rasmi ah u soo gabagaboobay shirweynuhu ururiye ee beesha Axmed Barre uga socday degmada Qurlugud ee gobolka Buuhoodle shirkaasi oo lagu gorfaynayay sidii beesha Axmed Barre u midoobi lahayd waxaana kala soo qayb galay wasiirka dawladda wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Injineer Cabdirashiid Maxamuud Cali Riyaraac uqaal odayaal qurbajoog iyo ergooyin aad u tiro badan oo kala soo qayb galay xiritaanka shirweynaha beesha Axmed Barre waxa sharaf iyo karaamo naga mudan dadweynaha halkan fadhiya noocyada badan kala noocyada badan ka kooban haday xildhibaano tahay haday cuqaal tahay haday odayaal tahay haday mashaayikh tahay markaad ka noqotaan shirkaas aanu halkii aanu joognay inaanu ka kacnay Axmed yahay cidii dan noo yeelataa inaanay waar heer hebelkii ku talagelin halka Axmed Barre ugu dhow cidii xitaa ergo wax naga soo galaan inay ugu timaado tiraaho waxaasaa naga gii soo galay ergadaasaanu nahay ergo coodan le ka timi beelaha coodan le ka mida oo ka timi waxaana soo gaaray shirka halka kan hadeerto munaasibadda inoo qabtay ina dalbaday meelo badan aynu isaga nimi mudnaana xigaalkaasaa leh oo ogaada inaanu midownay baa kowka ogaada inaanu midownay haddaanu nahay Axmed Barre ayaa kowka ha kaloo kowka dee loo duceeyo sidii la sheegay markaa ninkii soo kacaaba ducee ogaala waa ognahay waxaa jira sidii la sheegay Axmed Barre waa reeraha Soomaaliya ugu nimdoorka fiican bay ahayd guud ahaan ummadda isu timina ilaahay dambigeeda ha dhaafay waa ku faraxsanahay qolada Axmed Barre midowda shariicada ku midowdayna ilaahay ha u aqbala waa ku faraxsanahay ergiga isugu yimi iyo reerka hadeeba ku roon yahay shirka qabtay beesha Axmed Barre hadeeba ku roon yahay xafladda quruxda badan dadka isugu keenay hadeeba ku roon kii reer cayn ka yimi kii hawd ka yimi kii laashaha joogay yimi ka wuxuu nin wadkii diiday iyo nin waalan baa diida waan wada qaadanaynaa ka waa qoraal wacan waanu hambalyeynayna waanu u ducaynaynaa midowga ka dhacay halkan waxaanu rajaynaynaa insha Allahu tacaala inuu noqdo raaga la sugayay oo qayb gala shirkii beesha Axmed Barre ay ku lahayd magaalada degmada Qurlugud oo magaciisa la yiraahdo ururiye waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shirkan Axmed Barre shantii jilib Axmed Barre ku midoobeen markii hore ayagoo lama madax ahaa shanta jilib qodobadii warmurtiyeedkii shirweynaha Axmed Barre oo ka kooban 10 qodob haddaanu nahay beelweynta Axmed Barre waxaanu ka soo saaray shirkii beesha ee ka dhacay degmada Qurlugud gobolka Buuhoodle kuna taariikhaysnaa bilowgiisu 10kii bishii 12aad ilaa 16kii bishii 12aad ee 2017 warmurtiyeedkan hoos ku qoran kow beesha Axmed Barre waxay go'aansatay ku dhaqanka shariicada diinta islaam baynu nahay oo wax ka horeeya ma jiraan waxaan kale u mahadnaqayaa ergadan iyo odayaashan la soo casumay ee soo ajiibay ee yimi waxaynu leenahay dee waa marka hore waa hambalyeynayna waa baarikaynaa shir dee la isugu yimi oo lagu ururay macnihiisu ugu weyn waxa weeyaan ama uu dabada ku hayaa waxa weeye dad tashaday inay wanaag uun ku tashadaan waana iga ducaale telefishinka caalamiga ee bulsho degmada Qurlugud ee gobolka Buuhoodle.